kaliya inagu halkan waxaan u nimid inaan ku sheegno inaad ciidamadaada sida ugu dhaqsiyaha badan uga saarto gobolka Sool waana sida beesha caalamku ay soo fartay halkan kuma aanan imaan rabitaankaaga mana jirto wax dhimrin iyo jileec ah oo aan ku wadno ayay ku wargeliyeen odayaashii ka tagay koonfurta Soomaaliya kuwa ku sugan magaalada Hargeysa waxaan daawada idin soo gudbinayaa kulamo xasaasi ah oo dhaxmaray madaxda maamulka jamhadda SNM iyo odayaasha dhaqanka ee ka socda koonfurta Soomaaliya kuwa oo runta u sheegay Muuse Biixi oo fadhiga ka kacay iyo hadalkii nabadoonada oo qaadan waa ku noqday kadib markii runta ay u sheegeen waxaan idin soo gudbinayaa xogii ugu dambeeyay kulamadii tan iyo xal dhacay kuwa oo xaqiiqada lagu soo bandhigay maamulka iyo taliska Korneel Biixi koorsa daawada intaan ugu dignay faafahinta xogtaan iyo macluumaadkan ku soo biir boggan RNTV muuqaalka nashar garaw asxaabtada la wadaag aan ku bilaabay wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland ayaa tibaaxaya in kulamo gooni ah tan iyo saacadii la soo dhaafay yeesheen odayaasha dhaqanka ka tagay koonfurta Soomaaliya iyo qayb ka mid ah madaxda maamulka jamhadda SNM waxa laga wada hadlay waxyaabihii odayaashu ay u tageen oo ku aadanaa wada hadalka iyo dhexaadinta balse waxa la soo xigtay in qaar ka mid ah odayaashu banaanka ay keeneen macluumaadkii ay wadeen inagu halkan waxaan u nimid inaan runta ku sheegno oo ciidamada sida ugu dhaqsiyaha badan gobolka Sool aad uga saarto waana fariinta inoo soo dhiibeen beesha caalamka waxaan u gudbinay dhammaan macluumaadkii iyo xaqiiqooyinkan ku soo aragnay laascanood ayuu yiri afeenka guddigii tagay magaalada Hargeysa hadalkaasi ayaa lama filaan ku noqday jamhadda SNM gaar ahaan Korneel Muuse Biixi Cabdi oo goobta fadhiyay waxaana la soo wariyay inuu isaga baxay kulanka isla markaana uu iska tagay balse waxa goobta ku haray mas'uuliin oo kamid yahay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaan Axmed oo xaqada lagu wargeliyay inagu halkan kuma aanan imaan rabitaankaaga laakiin waxaan ku nimid inaan runta ku sheegno waxaan ku joognaa awoodda beesha caalamka sidoo kalena waxaan doonaynaa inaan idin sheegno xaqiiqooyinkii halkaas aan ku soo aragno inaan u gudbinay beesha caalamka ay hadalkooda ku dareen balse lama soo warin go'aan rasmi ah oo qaatay maamulka jamhadda SNM walow xogaha qaar ay tibaaxayaan in macquul tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamadooda ay kaga saaraan gobolka Sool waxaan gudbinay gumacyadii rasaasta iyo madaafiicda ku garaacdeen goobaha dadweynaha sida masaajida isbitaalada iyo guryaha intaba kuwa oo cadeymo buuxay haystaan haatan wadamada beesha caalamku tan ciqaab way ku filan tahay oo maamulka Soomaaliland oo muddo dhowr iyo 30 sano ictiraaf raadinayay ayay darbaxyo ku noqonaysaa haddii aanan barqaban korneelka hogaamiyaha idina ayaa lagu yiri wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaan Axmed oo miiska fadhiyay isagoo fajacsanayay kulankii xalay soo xiray sida la soo wariyay waxaan lagu ballamay kulamo kale oo tan iyo maanta la yeelanayo si arrintan loo sii garfeeyo waxay filayeen in loo furo wada hadal iyaga iyo beesha dhulbahantay isku haya gobolka Sool balse waxa loo sheegay inaysan u imaan wax wada hadal ah sidoo kale xaqiiqada ayaa la taabsiyay Korneel Biixi waxaan loo sheegay inuu kala horaba diiday odayaasha inay tagaan magaalada Hargeysa balse waxa la yiri waxaan ku nimid diyaarad ay ku xidhan tahay calanka Soomaaliya inagoo isla qab weyn waliba awood ku nimid Hargeysa ayaan haddana runta ku sheegaynaa ayaa hadalkiisa loo raaciyay si kastaba jamhadda SNM ayaa ku fashilantay duulaanka gobolka Sool iyadoo odayaasha dhaqanka haatan Hargeysa ku soo kala hor ay booqdeen laascanood iyo Garowe waxayna halkaas ku arkeen xaqiiqooyin kala duwan oo ay sheegeen inay la wadaageen xubnaha beesha caalamka awoodda ay ku tageen Hargeysa ayaa la sheegay inay siistay beesha caalamku kadib markii Korneel Biixi uu ka mamnuucay inay halkaas tagaan waxa Muqdisho ka keenay guddi ugu magac daray Irir Soomaali kuwa oo dhowr toddobaad soo jooga Hargeysa laakiin ku fashilmay inay arrintaasi xal ka keenaan balse guddigan xaq raadinta ayaa iyagu ka socda beelaha koonfurta Soomaaliya gaar ahaan Hawiye iyo Degel iyo Mirifle kuwa oo sheegay inay runta taabsiyeen Korneel Biixi iyo xukuumaddiisa intaba haatan xaqiiqadii ayaa la tusay sidoo kalena waxa lagu daray cawaaqib ka dhalan kara haddii ay ka madax adeegaan go'aanada beesha caalamku ay soo joodisay waxa la filayaa odayaashu in gelinka dambe maanta ay soo saaraan warmurtiyeed ku aadan waxyaabihii ay kala kulmeen Korneel Biixi haddii uu qaato hadalkii ay u geeyeen iyo haddii uu diiday intaba inagu shaqo kuma lihin kaliya waxa mas'uuliyad ay naga saaranta inaan geena fariintan loo soo dhiibay ayir mid ka mid ah wakiilada odayaasha ay Hargeysa tagay kaasi oo u warramay warbaahinta gudaha